qabashada awdal salal iyo gabiiley xilka qaadistii madaxweyne ku-xigeenka Kenya taariikhdii ugu horeysay ee shidaal laga baaro Soomaaliya iyo shirkadihii baaray ayaan halkan idinku hayaa toddobaadka iyo dhextaalka wararka aniguna waa Libaax Barqiye aan isku soo noqono wax yar kadib dadka awdal salal iyo gabiiley dega ayaa muddo dheer cabasho ka muujinayay in aan si cadaalad ah loogu matelin siyaasadda Somaliland gaar ahaan xagga awood qaybsiga iyo saamiga degaankooda weli si rasmi ah looma sheegin xisbi gaar u ah oo ay ku midaysan yihiin si ay uga qayb noqdaan saddexda xisbi ee soo socda taas oo ay ka qayb gali doonaan siyaasadda Somaliland si kastaba ha ahaatee ee waxaa jirta dood ku saabsan sidii loo heli lahaa matalaad dhab ah waxaana suurtagal ah haddii nidaamka siyaasadeed ee iskarab ordaya isbedel lagu sameeyo fikir ahaan in ay ku tallaabsan doonaan isbedel muuqda oo la taaban karo haddii kale se uu xaalku noqon doono kudka guur oo qanjo u guuro waana midda ay kaga maarmi karaan hadal hayntii awdal state xisbiyada barwaaqa iyo hilaac oo ku cusub siyaasadda Somaliland ayaa sidoo kale noqon kara meel ay bulsho weynta awdal salal iyo gabiiley u dhegtaagayaan inkasta oo weli aysan jirin isku soo jiid siyaasadeed oo mideeya balse dadweynaha ayaa u riyaaqaya inay mar uun ka helaan tabashadii muddada dheer soo jiidatay aynu u kacno xagga iyo dhanka Kenya madaxweyne ku-xigeenka Kenya ayaa xilka laga qaaday kadib markii uu baarlamaanka Kenya uu ansixiyay mooshin xilka qaadis ah oo ka dhan ah isaga kaas oo lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo ku tumasho dastuur wuxuu iska diiday eedeymaha isaga oo ku tilmaamay olole ka dhan ah impeachmentiga waxa uu yimid kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo madaxweyne William Ruto hadda kiiskiisa waxaa loo wareejiyay aqalka sanatarka si loo dhamaystiro geedi socodka sharci ee xilka loo qaadayo aynu u kacno dhanka iyo shidaalkii ugu horeeyay ee Soomaaliya waxaa la helay intii lagu jiray gumaysigii Talyaaniga ee 1950yadii iyada oo baaritaano shidaal laga sameeyay qaybo ka mid ah dalka si kastaba ha ahaatee baaritaanadaas ma aysan dhalin wax soo saar weyn waana la joojiyay markii dambe dowladda Soomaaliya waxay dib u bilowday baaritaano shidaal oo cusub sanadkii 1980kii waxaana ka shaqaynayay shirkado caalami ah oo ay ka mid yihiin Conoco, Shell, Exxon Mobil iyo Amoco shirkadahani waxa ay galeen heshiisyo baaris shidaal laakiin hawlihii waxa la hakiyay markii dagaal sokeeye uu ka qarxay Soomaaliya 1991kii intaa kadib waxa jiray qorshayaal dib loogu soo celinayo baaritaanadii shidaalka gaar ahaan sanadihii u dambeeyay iyadoo dowladda Soomaaliya ay heshiisyo la gashay shirkado cusub Exxon Mobil iyo Shell waxa ay ku lug lahaayeen heshiisyo taariikhi ahaa oo la gaaray xilligii dowladii hore ee Siyaad Barre laakiin heshiisyadaas waxaa dib loo cusboonaysiiyay 2019 si ay baaritaan u sameeyaan gaar ahaan dhulbadeedka Soomaaliya waxa kale oo heshiis lala galay 2022 Som Oil Gas haddaba shirkadda loo soo gaabiyo TPAO ee shidaal baarista oo laga leeyahay Turkiga ayaa u soo jihaysatay qodista shidaalka Soomaaliya iyadoo sida la sheegay dhawaan heshiis muhiim ah la gashay dowladda Soomaaliya heshiiskan ayaa ah mid ku saabsan sahaminta iyo soo saarista shidaalka gudaha Soomaaliya gaar ahaan badda Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa tan u aragta fursad muhiim ah oo dhaqaalaha dalka kor loogu qaadayo iyadoo oo Turkigu uu door weyn ka ciyaari doono horumarinta kheyraadka dabiiciga ah ee dalka Soomaaliya daawadayaal warkeeni toddobaadku halkaa ha inoo joogo inta aan kan ka ku xiga aan ku kulmi doono insha Allah